hagaag halkani waa xaafadda Soomaalida South Africa gaar ahaan magaalada Cape Town ee kaga nooshahay Biaval ahna halbowlaha ganacsiga Soomaalida Cape Town waxaa isku gadaamay saaka qaybo kamid ah xaafadda qaybaha kala duwan ee ciidamada dawladda Koonfur Afrika oo ku jiraan police qolooyinka law enforcement-ga ama dawladda hoose iyo waliba ciidamada kale ee loogu talagalay in ay aruuriyaan ama ay la socdaan alaabada aan sharciga lahayn oo badana ay ku tuhmaan in lagu iibiyo xaafadda Soomaalida waxana qaybo kamid ah wadooyinka gaar ahaan wadada Durban Road iminka aad ku arki kartaanba sida muuqaalkan idinkaga muuqata ciidamo kala duwan oo iminka abaabulaya inay xiraan wadooyinka gaar ahaan wadadan Durban Road halka laga soo galo loogana baxo dukaamada ayaad moodaa badankood in aan gabi ahaanba la furin oo wali xiran ciidamada si taltala ay goobaha u taagan yihiin waxana muuqata feejignaan dheeriya oo ganacsatadana muujinayaan ciidamadana ay isku dayayaan inuu howlgalkooda uu si aan caadi ahayn goobtan uga dhaco wixii soo kordhana waan idinla soo wadaagi doonaa magacaygu waa Cabdirasaaq Indha Jacayl